wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay ku waramayaan in qarax miino uu ka dhacay magaaladaasi xilli ay u diyaar garoobeyso magaalada Kismaayo doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland. qarax oo ahaa miino waxa la leeyay askar ka tirsan ciidamada Kenya waxaana la sheegay in qarax uu ka dhacay goob si weyn loo ilaaliyo oo ah guriga raaxada dhinaca dekada sida ay xaqiijinayaan dadka goobjoogayaasha ee ku sugan magaalada Kismaayo. inta la xaqiijiyay qaraxan waxa ku geeriyooday 3 askari oo ka tirsan kuwa ciidamada Kenya halka laba kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxan ka dhacay maanta magaalada Kismaayo ayaa ku soo aaday xilli magaalada Kismaayo ay ka socoto qabanqaabada doorashada guddoonka golaha wakiilada ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale tan madaxweynaha maamulka Jubbaland. xilli maanta lagu wado in guddiga doorashada ee maamulka Jubbaland ay shaaciyaan xubnaha ka mid noqonaya golaha wakiilada ee baarlamaanka maamulka Jubbaland kuwaas oo ka kooban 75 xubnood. horey sidan oo kale xilliga qabanqaabada doorashada ay socotay 2019 sidan oo kale qarax xoogan ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan hotelka Cascasi iyadoona xubnaha musharaxiinta ee ku sugan magaalada Kismaayo ay arintan walaac xoogan ay ka muujiyeen waxayna sheegeen mid lagu qalqalgelinayo amniga musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland. waxaana sidoo kale ay sheegeen in wax cabsi ah aysan ka qaadi doonin qaraxyada xilliyada noocan oo kale uu geysto hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe sida uu sheegay Cabdi Cali Raayiga oo kamid ah xubnaha musharaxiinta ee xilligan u tartamaya maamulka Jubbaland. magaalada Kismaayo markan waxa isku diyaarinaysaa doorasho iyadoona sidoo kale ciidamadii loogu talagalay inay sugaan ammaanka magaalada Kismaayo ay Jubbaland diyaarisay kuwaas oo ah police waxaana inta badan la dhigay wadooyinka soo gala magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalada gudaheeda iyadoona sidoo kale maalmaha soo aadan la joojin doono dhaqdhaqaaqa isku socodka gaadiidka maadaama maalinta berita ay tahay sida qorshuhu u yahay araji qabashada xubnaha u tartamaya guddoonka golaha wakiilada ee baarlamaanka maamulka Jubbaland halka maalinta ku xigtana ay tahay doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland. haddaba xaaladda magaalada Kismaayo faraha ay ka baxday markan waxay u muuqataa in sidoo kale dhinaca xubnaha mucaaradka iyaguna guddi ay sameysteen guddigaas qorshoodu waxa uu yahay in iyaguna doorasho oo barbaryaaca halkaas ay ka qabsadaan. la arki doono xaaladda magaalada Kismaayo sida ay ku dambayso wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadan ayaad ku daawan doontaan.